السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دو جنال كيجيان قب دونا مركل يسكسون قدوان أكسني مقال كلا عصب فضلا هذا يقول عصب تهاي سودو سبسكرايب إيسار كمن نقاط صحابتي إذا دور إلى جوكتنا مقال كان لايك إيسار وأنا ما تسنتين دما ولا لاك وحنا جنال كيجا ميل والبوء جوكتين وحنا إلهي إن كجر جيني أنا بدي عافمات إن تكون ولا تانا صحابت عصب يكسر بيرت جنال كيجا وحنا لا يقع مفروم كسر دو هذا جنال كوا جنال كينا ومركل إيه مقال كلا عصب أصحابتي إذا قرحت بدن يسكسون قدوان أكسني قصة دي صابرين ونومريسي قيبتي labaad waxay qaybtii koowaad ku soo dhamaatay inkastoo qaybta koowaad qayba aan ka soo tagay aan raba in aan idin kugu daro waxay tiri saabireen ninkii mar alaale iyo markii aan aqal galnay waxay tiri todobadii aan ka baxnay inkastoo xilligaasi aan gabar ahaa oo aniga ka shakhsiyan iyo ninkan aan nolol dhaba wadaagin ayaan todobadii ka baxay todobadii hadaan ka baxay tiri waxaan sugaa ninkaani inuu shaqo aado maadaama ninkan nin qani ah oo shaqaysto oo kaala arag ah oo aniga isaga kay dhigaaye halkaas markay taagan tahay aniga xoogaa waxay ila ahayd in ay doqonnimo saabiriin ku ahayd in ninka wax waaye inaa ogaatid banaanka markaa kala joogtiin maxuu ka shaqeeyaa ma shaqaystaa risq intee soo gasho haddii risqiisu adduunka ku kala faafsan yahay oo taajir cagadahaba uu yahay falilaahi alxamdu hadduu ahayna kista yar meesha ay ka soo gasho waa inaa ogaatid inuu shaqaysto waa inaa ogaatid ma ahan markii ninka aan nolol la wadaagtid in ay indhaha kugu kala furmaan banaanka waa inay indhaha kugu soo kala furmaan qofkan aan nolosha la wadaagaysid ma wada aqoon kartid qaybaha ugu muhiimsan in ninkan aa ka taqaanid laakiin ayada waxay tiri gabadha ay dabcan ilma yarina waa laga yaabaa in ay qaade yani ilmanimo waan yaabay tir markaa todobadii ka baxne ninkan shaqo maba aadayay guriga iska soo fadhiyaa waxaan ku eriyay tiri markaan ka yaaba guri fadhigiisa walaalo macaane ma shaqo aadid ilaa waxay tiri ninku maba shaqeeyaba sidii guri fadhiid u yahay taa waxa iigu soo xigtay tiri jaamacad maadaama aan dhiganayay ninkaana duruuf aan ku galay jaamacadii uu wuxuu bilaabay inuu yiraah ka joog inuu yiraah naag jaamacadeeda jika u dambeysee warkaas waa jaahilnimo waaye naag jaamacadeeda jika u dambeysee gurigan iska fadhi aniga waxaan bilaabay tiri jaamacadii inaan marna aado marna aan ka joogo hooyaday mar walba waxay tiraa gabadhayda saabiriin waa gabadha kaliya wax ii baratay waa gabadha kaliya ee aan mustaqbalka ku tasho doono jaamacadeeda yeysan ka harin ee wiilkaygiiyo jaamacadda ha aado wuxuu ku yiraa hooyo waa ay aadee waana aan ogolahay laakiin anigu wuxuu igu yiraa abbaa gurigan fadhi adigu yaana war idinku daalina sidaan jaamacadii u aaday awalna danta aan ninkan ku galaba waxay ahayd in nin dhaqaalo leh oo dee jaamacadaydan iga bixi karo nolol kaala arag igeli kara inuu yahay laakiin waaxid ma shaqaystaa oo hooyadiis iyo aabihiis hantidooda ku tashto ayuu ninkaani ahaa bacdeen waxaan eriyay tiri jaamacadii markii macallimiintii iga yaabeen marna gambinaayo marna aadaayo ilaa aqiiran la yidhahay jaamacadan gabaray ama toos u dhigo ama bataatanba jaamacadan iska dhaaf ayaan jaamacadii iska daayay hooyadayna waa aan ka qariya oo hooyo waxaan isaga dhiga inaan jaamacadii aado bacdeen markii dhowr bilood la qabo ayaan xaaladii aan idinkaga soo sheekeeyay aaday ninkii waxay tiri markaa ii imaam halkaas ayaa qaybtii koowaad noogu soo gabagabaysmatay wuxuu igu yiri abaayo bajaajtaada soo raac dee lacagna waa taasaa waa uu ii soo tuure kabacdi waxay tiri gurigiyaa imaade daawooyinuu ii soo gadgaday cabitaanuu ii keene anigiyoo taahaayo oo xaaladaydu xaal uu yahay ayaan waxay tiri gurigaygii kusoo laabtay halkii ayaa aniga iyo asaga ay nolol nooga bilaabatay oo ninkan waxay tiri nolol dhab ah oo aan wadaagnaba ay noo bilaabatay bacdeen waxay tiri sidii ayaan iskula sii noolaan oo nolosheenu waxay iska ahayd nolol iska macquul ah waxaan la deganaayay tiri ninkan reerkiisa macnaha faamilkiisa ayaan la deganaa wuxuu igu yiri tiri maalin maalmaha ka mid ah annagiyoo dee caadi iska ahoo dee gurigeenni isla wada joogno kaala saabiriine waxaan rabaa inaan kula hadle ahlan wasahlan irxaaji maxaa jeclaa lahayd inaa igala hadashid wuxuu igu yiri dhageyso aniga sidaa ujeedidba ma aan shaqaysto oo nin shaqeeya ma ihi reerkayga inta balaaraga aqli darada reerkayga inta ay adiga igu kaa arkayaan wax iima qabanayaan ma nin marka uu xaas yeeshaa wax loo qabtaa mise nin aan xaas lahayn aa la yiraa xaas ma lehe kan waxa loo qabto
caqligaa intuu ka shaqeeyey bacdeen waxay tiri warba waa dambeeyaahe halaag iyo hoog waaba maqli doontiine wuxuu yiri tiri abbaay waxaan u baahanahay inaa gurigiina aadid waayo cidayda ayaan rabaa inaan lacag ka qaato kabacdi waa aad soo noqon doontaa labadoo bilood orodoo gurigiina iska sii joog mar alaale iyo markii cidayda lacag ii qabtaan lacag isiyaan oo wax ii qabtaan oo aan shaqo bilaabo oo aan dee adduunka ii kala kaco ayaan isku soo noqonaynaa waxaan ku yiriye tiri oo gurigayga anoo joogo oo reerkayga dhaqanaayo maa waxaa qabsanaysa qabsatid anima lugtaan kaaga dhegana maya adoo ila joogto waxba iima qabsamayaan ifahan ha iga soo horjeesanin orodoo reerkiina aad waayahan ku iriye tiri hooyaday ma aan aadi karay tiri oo gurigii hooyaday ma aan raba inaan aado waxaan u tagay tiri gabar ila dhalatay oo markaasi xaas ahayd gurigeedii ayaan iska fadhiiste waxaan ugu sheekeeyey tiri ninkii in uu safar gale ileen nin subxaan allah gabdho haddii midku ixtiraamaayo oo dhaqan wanaagsan kugula dhaqmaayo oo biil haba kuu yaraadee faraqa kuugu shubaayo oo aan matalaalac iyo saqajaannimo iyo lafa wadawaraan macni iska dabalaalaabasho waxaanoo kale aan kugula dhaqmayn yaa rabbi laka alxamdu walaka shukru waa inaan dhahnaa ilaahan kugu dhaariye gabar la qabo oo marwaa in la yidhaha orod gurigiinii aad anaa wax la ii qabaa inta gelisay intana ma ka bixide adigu yaan war kugu daalinine gurigii ayaan aaday walaashayna waxaan ugu sheekay awheeloogan inuu safar aaday asagina waxaan ku iri lacalla haddii waa bini aadan walaashay ee ama kula soo hadasho ama meel isku aragtaan adigu uun aan noqono laba qof oo isku mowqaf ah oo hal hadal ku wada hadlo waxaa tirahdaa safaraa aaday oo yacni qof safar ku maqan ayaan ahaa waayahay ugu yiri safar ha aadama xumee guriga walaashay aan aadama xumee waxay tiri aqli xumadiisa aniga marka waxay tiri maadaama aan gurigii walaashay joogo laakiin naag la qabo oo marwaa aan ahay soo uma baahniyay tiri ninkan in uu biilkii ileen biilkii dukaanuu saaran yahe inuu isiiyo wax biil ah oo uu iga soo dabadiro haba yaraatee ma lahanay dhahde geni igama soo dabadiro haddii aan weydiiyeyna maba haayo gurigii waxay tiri mar aan cabaar aan dee walaashay la joogay oo gurigii walaashay inaan sii joogana aanan ku qanacsanayn oo hooyo markii ay soo hadashana dee loogu sheekeeyey in ninkaygii safar uu jiro tan aan la jooga xataa aan ugu sheekeynayo in ninkaygii safar uu jiro waxaa dhacday dhahde inaan maalmaha ka mid ah gurigii imaade waa gurigii markaasi uu asaga igu qabay hooyadiis iyo aabihiis iyo dadkii oo dhan ciddii oo dhan ay ku wada noolaayeen haddii aan gurigii imaade waxay tiri waxaan bilaabay in maamadii aan u sheekeeyo meel la fadhiisto oo meel banaanka maamadii aan isaga hor imaano kabacdi waxay igu tiri maxaa kugu dhacayo gabadhaydii maxaa u maqneed aniga waxay tiri warkii aan haye dhan iyo xaqiiqadii aan tufe wiilkaana wuxuu igu yiri intaas soo maqnaaw ciddeenaa lacag isiinayso haddii ciddeena maxaa la dhaha lacag isiiyan ayaan kusoo ceshana hee lacagta uu sheegayo waaba la siiyee adiga iyo lacag siismada maxaa isku kiin xiray macnaa maxaa waay inaad gurigaaga joogtid iyo inaad baxdid maxaa lacagta isaga xiray hee ma aqaano waxay igu tiri dhegeyso orodoo asagu marka maba rababa inaan soo noqdo orodoo qolkaasuu ku jiraahe bal orodoo u tago xaalka anaa aabihiisan u gudbi doonee bal warkaan waraa ka imaan doono waayaha asagiioo hurdaan u tagay tiri bacdeen waxaan ku iriye tiri haye waa aan imaade maxaa u imaate animaa imaaw ku iri ballanteena maasaan aheed maxaa soo doontay idhegeysaan iriye tiri abow aniga guriga walaashay iskama joogi kari walaashay waa naag la qaba sidaydoo kale marwaah walaal macaane dee naag la qabaan ahay ama naag la qaba aan noqdo ama naag madax banaan aan noqdo ani gurigaygaan usoo xiso gurigaygaana rabaa gurigaygaana jooga midda kale hooyadaa bilaaw iyo dhammaad ani waa aan u sheegay wixii labadeennaba noo dhexeeye kabacdii wuxuu yidhi tiri naag waalanaa tahay maxaa kaa qaldan maxaa ugu sheegtay see ugu sheege afaarehena ma rabtaa hooyadayn aabe inaa u sheegtid aniga waxaa ma ogoli qajajajaja xanaaqow hirif la yiriba wuu iska baxay tiri anoo gurigaygii la iska fadhiyo ayuu dib iigu soo noqday hooyadiiyaa marka waxaa dhacay tiri
in ay tiri gabadhaydii subaxii markuu waaga baryo aabihiisaan la hadlay hoo biilkaagay hooy waa kana dukaankana adeeg ka soo adeego cuntadaada karso sidii gabar dhaqmaysa u dhaqan dee aabihiisna akhlaaq xumadan kama uu ogolaanayo inuu saan kugula dhaqmo waa mustaxiil kama uu ogolaanayo waayahay aan dhahay tiri anagoo sida ay sheekada noo marayso oo gurigaygii sida ugu soo laabtay oo asagina isaga kay aamusay waxaa dhacday tiri in gabar asaga la dhalatay oo guriga ku nooleed in nin qurbaha ka imaaday uu soo aroosay aroosaa meeshii ka dhacay aniga lacagtii biil ahaan la ii siiyey gebi ahaanba waxay tiri waa aan isticmaale waayo awheelowgan maadaama waxay tiri markiisii horeba yacni lacagtii asaga la siiyana uusan waxba iga siiyin muddo aan xagga isaga soo noolaa hooyaday adigu lacagtii waxaan ka siiyey anigana arooskii maadaama la dhigaaye arooskii aan isugu sharaxay lacagtii sidii ku dhamaatay kabacdi waxay tiri arooskii markii laga fara dhaqday aniga biil ma haayo maamadii aan markaa way dareentay inaan biil haysan ciddii aan bilaabay inaan iskala cunteeyo asaga wuxuu iskala cunteeyaa maxaa la dhahaaye cidda maamadii way i weydiisay hooyo lacagtii waa igu baxday maadaama aroos iyo adduunyo ay soo gashay qaybna waalidkayaan siiyey qaybna waa igu baxday dhib ma lehe gurigu waa gurigaagii intay bisha ka dhamaatay gabadheedii iskala keen cuntee ciddii aan bilaabay tiri geeskood inaan ka cunteeyo ani waxaan ahay tiri saabiriin qof sabar badan dulqaad badan afgaaban gurigeeda isaga jirto anoo naf baahilo waxaa suurtagal inaan gurigeeda kasoo bixin gaasna waa aan qabaa maamadiyaa waxay dareentay tiri inaan guriga isaga jiro inaan baahanahay oo baahi tacbaan la ahay maalinay ii soo gashe maxaa kugu dhacay gaaskia igu kacsan waxay dareentay inaan cunadooda ku qanacsanayn kabacdi waxaa dhacaya tiri in ay odaygii ayada qabay ee u gudbisay aabihiyaa subaxyada kamida ii wacay wuxuu yidhi kaale gabadhaydiyey annaga xaq iyo xuquuqaa nagu leedahay gabadheenaba maynan jeclaa lahayn inaan saan ku fiirsano maxaa biil ah oo kugu filan oo aan ku siiyaa aabe intaa ii garatid oo ii garwaaqsatid isii kartaa aabihii dukaan wuxuu yidhi dukaankaas waxaa rita ka soo qaado lacagna gacantuu ii saaray asagii u wacay wuxuu yidhi faarax feerweynow idhageysoo yidhi waryaa gabadhaan sharaf iyo cisi aan nagula soo siiyey oo ciddeedii aan uga doonanay ma ahan inaa gabadha marna sii soco marna soo soco tidhaahid gabadhaan si sharaf la wiilow u dhaqo saan aniga bataatanbo ma ogoli kabacdi waayahay oo yidhi sidiiyaa nolol anigii asagii haddana noogu sii socotay gabadhii dhowr bilood kabacdi guursanaysay macnaha la aroosaayo oo arooskeedaba aan ka qaybgalayo oo asaga la dhalatay soo walacde nin qurbaha jiro ayaa gabadhaas guursaday gurigii soo fadhiisatay mar alaale iyo markay gurigii soo fadhiisatay waxay bilowday inayba aniga ishuufto naagaa la tus maqli jirta inay aniga i hariifto inay tiraahdo allah maxaa la dhahaa ii sheeg markii habeen galabtii oo kale aan guriga soo nadiifsado soo carafsado anaa la iigu dan leeyahay anaa kan leeyahay carafsa darteeya u buufiday gabadhii inayba i arki weydaba anigii shib aan iska iri horena waa la iigu sheegay gabdho badan oo gurigan lagu qabay in gabadhan ay maxaa la dhahaaye dagaal ku qaadi jirtay midda kalena aan idinka iloobay ninkan waxay tiri markuu ishukaansanaaye wuxuu iigu sheekeeyey inuusan soo guursan ninkan inta soo guursaday oo reero soo dhaqday oo ilmo soo dhalay ilmihiisu jidka maraayaan ana wuxuu iigu sheekeeyey weligayba guur sooma arag arrintaas marka asaga waxaanba ka ogaaday tiri markii aan reerkan dhex galay oo ilaa ninkii ciddiisii markaa dhex gashid oo meel kula nooshahay noloshiisii wixii ku saabsanaa dhan waa aad ogaanayho waa aad baranay taasna waxaan ogaaday tiri intii ciddaan aan ku dhex jire adigu yaana war idinku daalinine gabadhii markay i arki weyde maadaama ay in badan xoogaa inta i xariifte oo isaga dul qaate aan gurigii nacay tiri mar alaale iyo markii aan gurigii nacay aan asaga waxaan ku iriye tiri aboowow macaanow gurigan bataatanba iga guuri wuxuu igu iriye tiri naay dhageyso kaa guuri maaye meel iga fariiso aabihiisaa sheekadii maqle aabihiis hadduu sheekadii maqle wuxuu yidhi gabadhan wiil yahow dee hadday meel kale rabto inaad dejisid anagaaba ciriir idinku qabnee markaan waa nin shaqaysto waqtigu ayuu waa isgureen baabuuraa waxay tiri uu ku socdaa nolosha waa u kala kacsan tahay lacagti meel uu ku darsaday waa awoodnaa guri kale inaan degno aabihiis marka wuxuu yidhi waa shaqaysataaye orodoo gabadha xaaskaaga iyo adigu meel kale isla dega mayuu yidhi aniga waa ka xanaaqay tiri haddii aan ka xanaaqay waa aan baxay tiri gurigii walaashayaan aade hooyadayaan show u dacwoodayo warkiiyaan u sheegay
hooyo haddaan u dacwooday tiri ilaahay qadarkii warkii waaliskaa gaarsiiye waxaa maqlay mid walaalkeeya oo aad u kulul haddou mid walaalkeeya maqlay hadda ka horna waa uu ka shakisanaaba ninkan inuu ibahdilo ninkan inuusan si fiican ila dhaqmin jaf inta yiri oo taleefon qabsaday oo asagii soo wacay markaan uu soo wacaayo aniga gurigaygii inaan imaado aaba iga go-anba kaliya waa caroodo ma ogiye ninkan iyo noloshiisa aniga waa rabaa waa jecelahay gurigayga iyo reerkayga waa aan rabaa bacdeen waxay tiri awheelow kii ila dhashay ninkii soo wacay waryaa hadda walaashay soo fur walaashay rabtaa yani aad yani gumaysatid ani walaashay gumaysi uma rabo ii soo fur walaashay ninkii wuxuu yidhi dhegeyso walaasha hadday eedu raali ka tahay inaan furo saaxiib laba isma weydiinayso cali iyo caasho isma weydiinayaan anigu walaashaani xoog kuma qabo waa aan kuu soo furayaaye la soco bacdeen wuxuu yidhi okay sida ugu dhaqsiyaha badan ii soo fur ani warkayaan maqle waagiyaa igu bariye gurigaygiyaan orod ku imaaday ninkaygiyaan wacay intaani guriga imaan walaalo maxay taa furiinkaa sheegaysid ani waa ku jeclahay ninkaygiyaa tahay walaalow aniga furiin ma rabo say waxu jiraan maxaa qaldan aniga ma rabo inaan ku furo ma rabtid maho gurigaaga kusoo noqo gurigaygiyaan kusoo noqdo walaalkiiba kaalaba adigu celi qararara furyaa walaashay fur xoog maa ku qabee kawaan kaa siinaa saanaan ku yeelaa bababababa ma sii qabaysid kan waaye kida waaye ilaa markii dambe waxay tiri anigii taleefonkiiaan ka dhex hadlaa walaalow macaanow ninkayga waa rabaa in la ifuro ma rabo walaalow macaanow noloshayda ha soo dhexgelin aniga ninkayga naga dhex bax aniga gurigaygii guurkayga waa rabaa kabacdi waxay tiri markii sheekadii isku qasmate aan waxaan u noqday tiri gurigii hooyo maalin aad walaalkay ha iqabsadee sow ii dilaaye show lugtii aan qaadaba waxaad moodaayay tiri inuu ijabiye taariikhdii adduunka ii dhiga anoo meel walba ka buusan aan ninkayga soo waca walaal macaanaha i furin ani furiin diyaaru ma ihi bacdeen wuxuu yidhi hay guriga kusoo laaba gurigiiaan kusoo laabtay gurigii haddaan kusoo laabtay meel walba waa ka buusana oo saan yaa kuu galay saan waxaa ii galay walaalkeeyaa i garaacay kabacdiyaa hooyo wada hadlan hooyo waxay tiri gabadhaydiye soo dhawow midkaan kula dhashay waa ogtaa waa nin balwad leh mana uu kaa haraayo ee calal aqali kastoo lacaga siiye ninkaygiyaa shukaamiyey tiri waxaan idhaa boow cali ciddi waa isku qasay balaayaa naga dhex dhacday walaalkay iyo anigu waa isdagaalnay bal calal aqali ka siro hooyo iyo walaal aan siiyo isii waayahay oo idhahay lacaguu isiiyey tiri wax balwad leh lacagta luuba ku aqliyahee lacagtiiyaan u tuuray tiri waxaan idhi walaal macaan soo dhawow aniga aabbahayna iima noolo walaalo macaano wax barna waa aan bartaa waxbarashadii beentaa weli cidda waa ka daba wadaa waxna waa bartaa ninkaygana waa aan jeclahay walaalo macaanow guurkaygii iyo gurigayga faraha inta iiga qaadid kistaan lacaga iska qaado iskana kay nabadgeli ninkaygana wax alaale iyo wixii u yahay anaa ku qanacsan maadaa rabtid haa waayahay adoo soo qaylinaysid yaanan ku maqlin okay ima maqli doontide nabadgeliyaan eriyay tiri sidii ayaan anigii walaalkay isku nabadgelinay anigii waxaan bilaabay tiri reerkaygii inaan sii dhaqdo waqtigii iyo waayihii waa ay sii socdaan waxaan bilaabay tiri haddana in aan dhakhtar aado 2 bilood ayaan waxay tiri daawooyin qaadanaye gurigii cideenniyaan aaday aan ku soo maqnaa waa soo noqday gabadhii marka waxaa dhashay ay dhahday ay walacda ahayd oo reerkaani ay dhaleen gabadhii hadday dhashay canugii ay dhashay tiri subxaan allah ilaahow intaanan ubad haysan rabbiyow gacantaada ayuu ku jiraaye ilaahow intaan ubad haysan ubad ku irsaaq ilaahow intii haysatana yaa rabbi u barakeey owlaadu waa ubax waxay tiri gabadhii waxay bilowday inay canugeedii ay iga qarsato mar alaale iyo markii aan banaanka guriga aan saa u maro oo ay banaanka canugii ku haydo canugii ayba iga qarine walaalkeedaa qabo ay iga qarine maamadii wax kale iska daaye ayadina waxay bilowday tiri in ay marka aan aniga saa u soo socdaba sidii qumayo inay canugii marabaf ku siiso ee ay daboolato ani waxay tiri qof iimaan lahaan ahay waan ogahay owlaada inuu alla bixiyo waan ogahay khayrkay iyo wixii aan mar hore yani isla guursanay in ay ilmo dhaleen in 2 sano 3 sano la iqabo laakiin qadarka ilaahay ayaan ku qanacsanahay gurigaana aan ku fadhiyaa waa aan dadaalay daawooyin waa aan qaatay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu owlaada bixiyo ayaan aaminsanahay
bacdeen waxay qarqariyaanba markii dambe gurigii oo dhan ayayba ayagii ka guureen. hadday gurigii ka guureen guri kale iska degeen. anigii iyo asagii aw Faarax Feerweyne ayaa isku harne. Faarax iyo anigu markaa isku harnay tiri waxaad moodaaba in dadka nagu dhex jiro ayna dhibahayeen. kaala arag dad isfahmay, isku naxariisto, isjecel, kaala aragaa noqone. kabacdi waxay tiri gurigii haddana anagaa ka guurnay, guri kalean degnay. guri kale markaan degnay waxaan la degnay tiri gurigaas marka aan degayno gabar maya maamo cid adigu faamil ah aan horta la degnay tiri. aniga iyo asaga markaan aad aan isugu fiicannahay, aadna waa isku jeclaanay. waxay tiri ha dhicin, ha jabin, maxaa kuu cad, maxaa kuu macaan, noloshu waa kuu side oo yiraah. habeenkii oo dhan cashuu igeeyaayay tiri. habeen walba kaale heblaaya saabiriin cashaan ku geynaa, cashuu igeynaa, askariimo isoo siinaa, banaankaasaa kusoo baashaalayna, baawurku isoo saarana. habbi farxad iyo jacayl aa labadeena inaga dhexeeyo. wuxuu waqtigii saa u socdaba naag guriga degan oo markaas guriga aan ka kiraysanay waxaa dhacday tiri, waa gurigii saddexaad midha aan degayne. waxaa dhacday tiri in ay heeleydii ay bilowday inay ninkii shuufto, inay banaanada intuu is istaagto hay camal tiraa. aniga tii la iga maray tiri, laba fiilaa mirif istiri. asagiyaa waxaan ku yidhi tiri waree ay dhegayso, naagtan adoo la hadlaysid bataatan mar dambe ma arki karo. yaa weyla kataan kugu arka naagtan adoo la hadlaysid. ayadu waxay bilowday tiri marka hooyadeed lacagta ijaarka ay qaadato ayaday ku wareejida, ayadaa qaadato inay ninkii wacdo. $5 iisoo tuur, $6 iisoo tuur, $2 iisoo tuur, kan iisoo tuur ninkii inay tiraa. maalinkii dambe inta waxaan eriye tiri le naagaan ahayo waa maseeraayo xaqaan u leeyahe abaay fiiri ninkan maxaa 90 u tiraa $2 iisoo tuur, $3 iisoo tuur, $4 iisoo tuur. maxaa u tiraa lacagta ijaarka ah hal maraa la isku qaataa, hal maraana lagu siinaa. maxaa ninkan maalin walba u wacataa idhageysay tiri idinka leeb idin qafiifinaaye maxay dhibay haddaan kan iisoo tuur kan iisoo tiraa. nooyaan eriye tiri mamnuuc waayo waxaas bataatan ba ma dhihi kartid. bacdeen waxay tiri sidii faraha uga qaade, laakiin waxay samaysay aniga waxay tiri ubad guriga iima joogaan. gurigan aan deganahay iyo gurigii walaashay waa ay isku muuqdaan. markii aan subaxii quraac siiyo oo shaqadiisa uu iska aado, waxay tiri inta la bisto aan gurigii walaashay aadaa waqti ku soo qaataa ilaa habeenkii uu maqnaanaa. waxay bilowday ninkii haddii lacal anoo maqan intuu yimaado uu weydiiyo, ilaan jawaabtu waa kala fiican tahay. haddii lagu yiraah fiir heblaayo intay aade uu ninkeedii ku yiraah haddaad tiraah ka waran heblaayo ma aqaan wallahi hadeeta dhow waa joogtay, iyo haddaad tiraah heblaaya maalin walba waa ay baxdaa, waa ay kala fiican tahay. ilaan ayadan waxbay maagantahe. ninkii waxay ku tiri oo ma ogid miyaa naagtaada maalin walba way baxdaa, war uma haysid miyaa? saasay dhab ku siida. asagiyaa igu xanaaqay. wuxuu igu yidhi dhegayso hooyadahan ba kuu sheegaa, maalin walba markii gurigan aan ka baxo waa idaba maraysaa miya adna waa baxdaa. markaasaa waxaan ku idhi tiri fiir Faarax isdeji, xaaladda noo deji, mar dambe ma bixi doono, ballan waa gurigeygan aan dee jooga. islaantii ayada dhashay aan qabsaday. waxaan ku idhi tiri fiir habaryar, gurigan aniga ijaaran kuugu deganahay. gabadhaadan afka dheer ee caasha af qurunta ah idab u yeelo. aniga gurigaa ninkayga haddii aan ka maqnaado iyo haddii aan joogo ish daqalaha ayada maxaa ka quseeyo. waay ay u dhehee heblaayo maanta dhanay maqneed, heblaayo mar kasta aa baxdid way kaa daba baxdaa. damay iska tiraado hadeer inta maraydo mar dhawey baxday. way idab darantay tiri gabadhaadee iga cesho. maamadiyaa waxay igu tiri habre macaanto way kaa qaldantaa, mar dambena ma dhihi doontee aniga igu haleey. sidii ayay maamadii gabadhii iga reebatay. markii dhinacii ninka aan dee ka soo xiray ay bilowda aniga inay igu soo jeesato, inay tiraanaya ninkaaga naagu maxaa la dhahaa ii sheeg inta la taagnaa ninkaa. aniga marka waxay tiri maraa haddana guriga ka maqnaa, inay tiraa ninkaaga naagu inta la taagnaa, ninkaaga maxaa la dhahaa naag heblaaya gaagaadays. asaa waxaan eriya tiri fiiri adi ninkayga ii ilaali maan ku dhehe, ninkayga naagtuu la istaago iyo tii fiirido ii fiiri maan ku dhahmay. maxaa kaa galay abbaay ninkayga waa ku kalsoonahay, naagna naag wax ma dheero ee wax ma kuu sheegaa. nin ii muraaqabeeyo askari yacni la yiri ilaali xero military camal, ani ninkayga ha iigu ilaaline wax kaa quseeya ma lahan afaarahaas ka bax. anigiiyo markay igu soo jeesatay waxay bilowday inay tiraa fiiri saabiriin
doqon maa tahay maa isdaaweysid nin ayaa ilmo la-aan kuma rabaayo adiga ilmo uma haysid ninkan waa nin ladan nin qurux badan oo shaqaysto nin nolosha u kala kacsan tahay doqon maa tahay naayaa isdaaweye naayaa kan isyeel inay tiraahay bilaab bacdeen waayahay unbaa iska iraa ninkii iyo anigu markaan loof aan isku nahay tiri habeen walba cashadaydaan aadaa inta sidaa isku labiso oo waxay tiri gurigeyga carfaayo oo kaala araga aan baxo aan noloshu waxay isugu kay dabadhaceehay tiri kaala arag falilah alxamdu habeenada ka mid ah ayaan baxnay tiri mar allaale iyo markii aan baxne waa aan soo baashaalayna banaankaan ka soo cashayne heeso waxaan daari jiray tiri aniga aanan iqusayn oo aan isku duuduubi jiro oo laqwi ah heesahaas heeso ee Yurub Kenya qaado aan waxay tiri isku duubi jiray habeenkii wuxuu igu yiri tiri anagoo soo socno gaariga isla saaranahay Sabriine adiga waa ka yaab heestan kuma qusayde way aad isugu duubtaa mar walbo markaas waxaan ku yiri xabiibi waa caadi waa aan iska jecelahay waa aan soo baxnay tiri guriga imaane si nabad ah aan ku seexanay subaxii markuu waaga bariyay ayuu asagii xanuunsaday caloosha xanuuntay tiri daawooyina u soo qaaday daawooyin hada u soo qaaday daawooyinkii oo isticmaalay ilaahay amarkiis wararana dhexmaray ani asaga xoogaa yani waxba isku qabsanay waa isqooqoone markii aan isqoomnay oo wuxuu igu yiri asagoo sii baxay inta la bistay oo uu rabo inuu baxo oo wuxuu igu yiri hal dalaaqo ayaad iiga furan tahay bacdeen ani waxaan u maleeyay tiri wax iska dhex ah waxee iska dhex ah marka waa uu baxay tiri waa uu isoo wacay hayama gurigiyaa joogtaa uu yiri markaasaan bahdilkuba halkan ayuu ka bilaaba doonaa qisaduba hadda ayay xaraaradeeda noo bilaabatay waxaan ku iriyay tiri haa gurigiyaan joogaa fiiriyo yiri Sabriin aniga ma ogid miyaa waxaan iri haddii aad gurigaas ku soo laabatid hal dalaaqa iiga furan tahay marka ma rabo in ay dalaaqadu naga baxdo walaalay macaantooy oradoo guriga ka tag oo gurigii hooyada iska aad waxay tiri hooyaday waa hooyo kulul gurigeena duruuf iyo danna way ka jirtaa meesha nolol iska qaboobo lee caafimaado cabitaankayga iska qasaayo gurigeyga waxay tiri inta iska nadiif iskaga dhex jira daara iska ma rabay tiri walaalahe iyo kii idilay iyo buuqi ina u laabto waxaan ku iriyay tiri see camal walaal wuxuu igu yiri calaay taxal ma inaan kala tagnaa rabtaa oo dalaaqadu sidaa ku dhacdo mise waa aad tagee ilaahan kugu dhaariye laqwigu horta ma fiicno laqwigu ma fiicno dumarkuna dhaawacyo badan waa ay ka siman yihiin xaaladaas marka aan ku jiro lababa waa ay dhici kartaa runtaa fiican mogta in la iskibkibriyo balaayo la iska dhigo ma fiicno aniga ka ayaan ahaan inkastoo aan ahay qof aad u madax adag ani wixii ka joog laydho leeba ii macaanaado yaa igu dabeecad ah haddii ilaahay kuuma daraadee gacantaada naftayda la geliyo ee ay tidhaahdeen naftan kaa qaadaa haddii kala saa suubi wallaahi waxaa iga suurtagala ani been idinma sheegayo wallaahi ma ku dhahayo waa dabci qurxoon in naftayda ilaahay gacantaada horta maba gelin mana awoodida haddii laakiin qadarullah lagu dhiibo inaan naftayda ka sabri lahaa aad aan u mayal adaga ilmahaygana kuwa iraacaa jira haddaad tan iyo beri garaacaysid waa suurtagal in go-aankiisa aajabisid wiilkayga weyn hadda inuu dabeecadaas iska bedelaa dhici karta laakiin Cimraan ilaa yoomina haadaa waa leeyahay wax gacantiisa ku jira haddaa amar inaa uga qaadi rabtid waa mustaxiil kow haddaa ka siinaysa kow inuu ku siiyo haddii marka lagu yiraah walaalo furiinka waa dhacaa haddii kale guriga ka tag ma ka tegi lahayd furiin waa wada necabnahay waa is ognahay adiga marka iisoo indhaweyn ma ka tegi lahayd run adoo sheegaya alla kuguma keenee mise waxaa dhihi lahayd waryaa anaa waxaa ay leedahay miya haddaa guriga sii joogtid dalaaqaa dhacday war ma walaad aniga bil iyo baati gooni iyahayda mise inaad ka soo harta waryaa ifur dalaaqadaa sheegaysidna ha dhacdo saas maa dhihi lahayd qaybta commentiga iigu soo qor Sabriin waxay tiri waxaan ku yiri okay hadda ma dhacay ha orod yalla dhaqaaq bacdeen gurigaan waxay tiri ka soo dhaqaaq ilaa ninkii inuu ifuro ma rabe la rabiyo khayr mas'uul markuu ilaahay wax kuugu daro waa saas
jafaan iriye tiri haddii qofka cara ka keentoo shaydaan qaado waxbuuba kuu ahaalahay xaa dambeeya gurigii waxaan tegayay tiri walaashe gurigii walaashay markaan tegay hooyo waxaan ugu sheekeeyey tiri in aan guriga iska imaade walaashay markaan wax waayey tiri maxaa la dhahaaye maya midii waxaan u tegay tiri horta walaalahay waa labo midna waa caasho carab dheer midna waa mid degan oo waxba aanan sheegin caasho carab dheerta gurigeeda may ku hormartay maaqaan labadii la dhalatay ay mid ku hormartay ma rabto in sirteeda yes caasho carab dheer ay u hormartay ma rabto in sirteeda iyo arrimaheeda inay u sheegto waa wax fiican waalidka iyo walaalaha waa inay mansab iyo dabaqad ku kala leeyihiin ma rabay tiri furiin inaa sheego aw heelowna jaa wuxuu igu yiri iska tag bacdeen guriga anoo joogo oo isku buuqsan oo isku wareersan waxaa dhacday tiri inaan soo wacayo gurigii waa ka tagay ma ku soo noqdaa gurigii si dalaaqadii bal ay dee u laabato maya hadda ha ku soo noqon rajactu markaan ku dhaho allahna gaarsiiyo haddaaba rajactu idhihi kartaaye walaal macaan hadda maa rajactu idhaahdid iyo rajacti hadda ma ku dhihi karo haddii aan rajactu ku dhaho yacni dhowr bilood inay kasoo wareegata waa ani waxay tiri cilmi uma lihi naag la furana weligay ma arag meel la isku furana ma joogi jirin aasaa waxaa dhacdayay tiri saas miyahaa warkiyaa iska aamin habeenkii marka waa isku buuqsanahay aniga dhan barbaleen iyo buuqaa igu furan aniga dhan waxaa dareemayay tiri murug fara badan xaaladayda xaal waaye markaasaa hooyo waxay tiri naaya maxaa kaa qaldan naaya maacad casho ilmaha iigu karisid gabadha ila dhalataa soo booday tiri ayada war uma sheegin laakiin ilintu min qayri iraadii iga soo daadanayay tiri shabax iska soo leedaha ilaan furiinkii aan ka baqaaye markaasaa waxaa dhacday tiri waxay tiri hooyo gabadhan way isku buuqsan tahay ayadaa wax ku furan yihiine iska dhaaf waxna iima sheegine cashadaada adugu iska karso bacdeen hooyo sidii cashadeedii u karsatay ilmaheediina cashadii ugu qaadate anigii waxay tiri wax inaan sheega ma rabo subaxii mar allaale iyo markii uu waagii barye aan waxay tiri waxaan u tegay macallin dugsi qur-aan waxaan iriyay tiri aaw macallinow haddii laba qof ay isfuraan oo labadii qof markay isfuraan aysan waqti ka soo wareegan ma isku noqon karaan markaasuu yiri hadda hadduu ninkaagu ku furo oo 3 uusan kugu furin hal labo yacni dalaaqada hadday kuu harsan yihiin hadduu kugu noqon karaa aasaan iriyay tiriyaa oo hadduu igu noqon karaa nacam hadduu kugu noqon karaa waagiyaa igu bariyey tiri waagi igu bariye bacdeen waa aan soo dhaqaaqay tiri gurigii uu asaga joogaan u imaaday tiri kadib maxaa xigay maxuuse ku dhigi doonaa sidee ayuuse saabiriin ninka kan khayra mas-uulka ee qaa'inka uu ilaa xaddin maa gabadhan yar u bahdili doonaa la soco qaybtii 3